salaadiinta dhalinyarada iyo haweenweynaha beesha aadayoonisoo kamida beelaha gufaaca weyn la degmada Togwajaale ee gobolka Gabiley oo maanta qaar kamida warbaahinta kula hadlay gudaha degmada Togwajaale ayaa waxay madaxweynaha Soomaaliland wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo taliyaha guud ee ciidanka biliiska Soomaaliland bay ka codsadeen in sharciga la horkeeno cidii ka dambeysay dilkii Allah u naxariistay marxuum Caydaruus Maxamed Daahir loogu geystay gudaha degmada Togwajaale sidoo kale dhalinyaradan iyo salaadiintan iyo haweenkan oo hadalka sii wata ayaa iyagu waxay xoojeen isla markaasina ay taageereen hadalkii shalay toole ay jeediyeen salaadiinta iyo garaadada beesha aadayoonis kuwaas oo xukuumadda ugu baaqay in si degdeg loo horkeeno cidii ka dambeysay dilkaasi salaadiinta iyo haweenka iyo dhalinyarada oo arrimahaasi arrimo kale ka hadlaya ayaa waxa kamid ah hadaladoodii dilkii fooshay magaalada Togwajaale ka dhacay ee biliiska magaalada Togwajaale ay geysteen ee waxaan la aragoona maqal Soomaalida dhexdeeda wixii ka dhici jiray caalamkaba ay sameeyeen in intay banka ku dileen haddana ay admeydkiisii waraabaha u dhigeen ay waliba qariyeen yaanu ka hadlaynaa haddaanu nahay dadka ehelka ninkaasi ka soo jeedo dowladda Soomaaliland waxaanu ugu baaqaynaa nimanka in cadaaladda degdeg loo horkeeno waliba dil lagu fuliyo halkii dilka ay ka geystaan loo keeno waxaan taa ahayn oo naqancinaysaa ma jirta bartii ay ninka ku dileen waraabaha ku siiyeen halkii in lanoo keeno lanoogu dilo ayaanu dowladda Soomaaliland ayaanu ugu baaqaynaa hadalladii ka soo baxay salaadiinta beesha iyo odayaashu shirkii jaraayada ay shalay qabteen taasi oo annaguna aanu xoojinayno oo nu leenahay sida ay odayaashu u hadleen ay dawladda u sheegeen inay waxa weeyaan u fuliyaan dawladdu sida awgeed sinaba kuma qaadan karno sinaba uma yeeli karno waxaan ahayn dil taasi oo dil foolxuna oo ka dhacay magaalada Togwajaale oo ah waxaan geyga Soomaaliyeed inta degta aan lagu arag sida awgeed waxaan ugu baaqanaa xukuumadda Muuse Biixi Cabdi wasiirka arrimaha gudaha taliyaha booliska iyo gudoomiyaha maxkamadda sare inay sida ugu dhaqsaha badan leh saddexdaan nin ee falka foosha xun ee marxuumka ku fuliyay sida awgeed waxaan u sheegaynaa xukuumaddu inay sida ugu dhaqsaha badan leh maxkamaddu hor keento ma sugi karno muddo bila ma sugi karno oo ta'kiidinayna arrinka odayaashu ka hadleen haddii si qalbeelka lagu qoro arrinka oo waxa uu noqoto anigu waxa ka dhaca kuma jiro waxa dhacda in lafaha iyaguna saldhigga Togwajaale dhex yaalaan nabadgelyana habeenkii guryaha lagu seexdo laba la isla heliyo ma waxaan aad u fikraysanahay maaragtay geeridii fooshumeed ee ummadda maaragtay meel ummad Soomaaliyeed degtay aan wali lagu adeegsan magaalada Togwajaale inay geysatay xukuumadda iyo dadka ku labisan dariiska booliska qaranka waxaanu halkan ka adkaynaynaa baaqii shalay odayaasheedu ka jeediyeen maaragtay u jeediyeen xukuumadda maaragtay nuuceega ama wasaaradda arrimaha gudaha ugu horeyso kullay aan waxaan u sheegayaa xukuumad ahaan iyo maaragtay iyo madaxweynaha qaranka Soomaaliland meel lagu kala baqayaa ma jirto tallaabo degdeg ah hadii looga qaadi waayo arrinkaas waa haday xukuumaddu diyaar u tahay inay shacabkeedu iyo duqaamiyada isku qabantaan qol arrimooda noocan oo kale oo falalo noocan oo kale oo ay dawladdu lagu tiro waxba ka qabanayno in waxba ka qabanin baa jirta marka dhamaantay haddana bal wax isleenahay hadda hadashaan waa kuwa waa dhagaxantii kulli waa dhagaxdiigu kuma la hadlaynaa xukuumad meesha jirta anagu arkimayno haddii wax fulinayso maalintii ay wax dhaceen maalintii ku xigtay fulinay wiilka dhashay baan ahay waad dareemi kartaan qof kasta oo islaamihi dhibta ay leedahay hooyo ilmaheega 18 jirkii loo dhigay waraabaha oo nin diray xiran oo xabadii dawladda lagu dilay oo diriiska dawladda lagu dilay oo gaarigii dawladda lagu dilay waa dareemi kartiin dilka waa wax iska dhaca oo dawladdu wax weydiishaa haddana wax sharciya un bay ku xalisaa sharcigiina kuma ina xalinin tubaaga ayay u dhigtay waxaan ka codsanayaa madaxweynaha wasiirka gudaha iyo cid kasta oo khusayso inay si degdeg ah uga soo jawaabaan dhacdo foolxun ayaa dhacday magaalada Togwajaale oo abid meydkayagii oo lafaha loo dhigay lafihiina ay dawladda haysato wax jawaab oo ay nasiisayna ayna jirin kama hayna jawaab dawladda dilmo iyo cagajubleyd iyo hanjabaad mooyaan waxaanu ka haynaa ma jirto ciidan la bedelayna wuxuu noo taray wuxuu noo qadanayaa toona ma jirto musabixin la yiraahdo musabixin jabad ka ahayd in ragayna jabad noqdeen oo dadka cunayaan oo ayda u dhigayaan oo waraabaha halka wadada nagu cunaya warana uu noo cunay imikana uu cunay in yar ayda loo dhigo 18 jira yaa halkaasi u juuqna maynu soo oran kamayna soo hadal roolaba saal noo eeganay intii dambana la doonayay in la waxaan doonaynaa 3 sano in wax looga
looga qabta haddaan wax badan looga qabana waxaan yeelayna annagaa yeeli annagoo degaan oo u dhalanay wajaale yaan haddana ugaadh ku nahay annagoo degaan khadar cabdilaahi telefishinka caalamiga badda cas 24 TV magaala ganacsiyeedka degmada Tog Wajaale.